dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaantaas qiimaha badan kadib munaasabadan runtii waa munaasabad aanu isku tahniyadeynayno waalidkii sharafta badnaa iyo walaalihii ka waaweynaa ardadan hortayda fadhida iyo cid walba oo soo taakulaysay ardayda in ay himiladooda waxbarasho sare gaaraan in aanu dhammaanteen u wada mahadnaqno oo aanu dhahno mahadsanidin. magaciina ugu mahadnaqaynaa. waxaan sidoo kale mabruuq leenahay ardada soo dadaashay ee culayska badan soo martay iyadoo dalka dhibaatooyin badan ka jiraan himiladooda siday u gaari lahaayeen maalin iyo habeenba u soo jeeday ee socodka dheer soo maray ee maanta gaaray guushii waxa weeye guushaasaan idinla qaybsanaynaa. waxaan idin leenahay hambalyo mabruuq. ummadda Soomaaliyeed dowlad ha ahaato, fulin ha ahaato, sharci dejin ha ahaato, garsoor ha ahaato, heer federaal iyo heer dowlad goboleed ha ahaato, dhammaantood waxaa hanti u ah oo sharaf u ah waxa weeye waa xooggiina mustaqbalkiina weeyaan. idinka ayaa ah yacni waxaan hadda loo gudbinayo waxbarashada sideeduba waa jiil kale aqoon u gudbinaya. waa wax hanti la isku sii dhiibayo weeyaan. dalkana hantida ugu sarreysa waxa weeye human resourcekiisa, hantidiisa dadeed weeye. dalalka caalamku waxa weeye Soomaaliya marka dalalka carabta la qiimeeyo waxaa la yidhi dalkee ugu qanisan. who wants to be a millionaire barnaamijka la yidhahdo yaa doonaya inuu noqdo millionaire ayaa lagu tartamay. marka waa la isweydiiyey waxaa la yidhi dalalka carabta dalkeeba ugu qanisan. qaarba meel bay ku dhufteen, qaar Masar ku dhuftay, qaar Algeria yidhi, qaar Sacuudiga batrool badane sheega la yidhi, kulligood waa ku guuldarraysteen. dalka ugu qanisan wuxuu noqday Soomaaliya. sababta oo ah dal leh baaxadda intaa la eg ee badeed, dal leh baaxadda intaa leh ee waxa weeye dhuleed, dal kale intaasoo bilyan oo xoolo nool ah, dal kale dhulbeereed intaa la eg iyo webiyada qulqulaya intaas dhan, dalka oo hoostiisu macdanta intaa la eg ku jirto oo baddiisa iyo barigiisuba batroolka iyo gaaska ku jira caalamka oo dhan macruuf ka yahay, meel uu ka jiraa ma jirto.